dhanka aynu eegno magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka SSC waxa wali ka socda dadaalo waaweyn oo lagu doonayo dhamaystirka maamulka SSC Khaatumo beelaha qaar ayaa moodaa xilligan inay qaadaceen dhamaystirka maamulka SSC Khaatumo beesha faqashin oo kamid ah beelaha deegaanka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa gabi ahaanba maanta warbaahinta la hadlay waxayna ay sheegeen inay gabi ahaanba si rasmi ah ay u qaadaceen shirka dhamaystirka maamulka SSC Khaatumo isla markaana waxay gabi ahaanba ay ka biyadiideen xubnaha gudida loo saaray oo ay sheegeen in gudida hadda la saaray aysan gudi ku filan beesha faqashiniya oo kamid ah beelaha deegaanka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxa wali ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dadaalo waaweyn oo lagu doonayo dhamaystirka maamulka SSC Khaatumo waxaana beeshan ay kamid tahay beelaha deegaanka gobolada SSC Khaatumo isla markaana si rasmi ah waxay u dhaleeceeyeen gudida soo xulista gudida iyagoo sheegay gudida la siiyay in xilligan aysan u qalmin isla markaana ay filayaan in gudi ka badan xilligaas la siiyo waxay sheegeen in gabi ahaanba ay ka tanaasuleen isla markaana ay diideen ay ka biyadiideen gudidan iyaga gaarka loogu xulay isla markaana oo noqonaysa gudida beesha faqashini waxay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha faqashini oo sharaxafaad ku qabtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ay sheegeen inaysan gabi ahaanba ka mid noqon doonin ergooyinka ka qayb gali doona shirka dhamaystirka maamulka SSC Khaatumo ee dhawaan ka furmi doona magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool khadka telefoonka waxa si toos ah ugu jira Garaad Daawud Cashuur Warsame oo ah isinka beesha faqashini waxaanu garaadku uu soo dhaweynayaa isla markaana uu taageerayaa go'aamada ka soo baxay odayaasha iyo waxgaradka beesha faqashini oo muddooyinkii dambe shirar kala duwan ku lahaa magaalada Laascaanood bal Garaad Daawud soo dhawow bal anaga warbaahin ahaan baan la soo xidhnay Garaad bal soo aragtaa go'aamada shirka ka soo baxay odayaasha dhaqanka bismillah wad mahadsantahay Xuseen Xasan Cadeewri wad mahadsantahay haddana jaaliyada North America in muddaaba halkan shirar baanu ku lahayn annaga oo ka war dhowrana shirweynaha ka furmay magaalada Laascaanood ee lagu dhisayo lagu dhamaystirayo maamulka SSC Khaatumo iyo Baakhir annagoo han weyn ka qabnay in halka wax dadkani u dana oo baahida kaga baxo in lagu dhiso lagu dhamaystiro annagu ka beelahaan juhdi badan baanu gelinay inaanu helno maamul dhamaystiran oo ka turjuma dadka deegaanka waxaanu geed dheer iyo geed gaaban buu fuulnay inaanu ka dhaadhicino walaalaha koonfureed ee beesha Hawiye inaan maamulkaasi uu yahay maamul sax ah oo ka u adeegaya bulshada halka degan waanu ku guuleysanay shiil iyo hoo iyo juhdi badan baa naga galay haddana beesha faqashini ilaahay khayra ka siiyo Suldaan Mustafana aad buu u shaqeeyay inuu hawshaas ka midho dhaliyo iyo jaaliyada joogta Xamarba jaaliyada qurbuhuna sidoo kale ayaanu juhdi badan gelinay inaanu ka midho dhalino dhamaystirka maamulkaas shirkii markii uu furmay gudidii ay magacaawday dawladda federaalka wasiirka arrimaha gudaha magacaabay xubintii aan ku lahayn waa laga reebay waanu ka hadalnay cidinagama hoos qaadin gudiyadii hadda la magacaabay ee kale ee ergooyinka iyo sharci dejinta iyo arrimaha ahaana waana laga reebayo qoladii gudida sameynaysa way naga reebeen arrimahaas oo iskaashaday ayaa aakhirkiina waxa ka soo baxay wixii meesha lagu qurqurayay ee lagu dhisay maamulka inay haba yaraatay wax talaa beesha faqashina aan laga siin kaalintay lahayd aan la siin xubnihii uga qayb galaya aan la siin arrimahaas oo isbiirsaday waxay keentay in meeshii wax lagu gorfeynayay ay beeshana ka maqnaato meeshani waa saddex geesood arrinta Laascaanood ka socota marna waa laba geesood mar waxa weeye maamulkan Hawiye daarood baa loo Hawiye harti baa loo dhisayaa marna waa saddex geesood oo warsangeli iyo inta la socota iyo dhulbaantii faqashini baa maamulkan loo dhisaya saddexda garabo iswata ay wixii ay go'aan ku gaadhaan ayaa maamulkan lagu saleynayaa laguna dhisayaa waxaad moodaa baashi in la afduubay dadka shaqeynaya kala taga dadka iyo burburka maamulkaas inay garwadeen ka yihiin in ay kaalintii beeshan ballaaran ee digtaa Sool iyo Sanaag iyo Caynba kaalintii ay ku lahaayeen inayan muuqanba inaan laga talagelin inaan xubniyaan xaq u lahayn aan la siin inaan meesha miiska wada wax lagu kala gooyayaan lagu darin arrimahaas oo dhan baa cabashada keentay haddana jaaliyadana waxaan go'aan ku gaadhnay
maadaama odayaashii gudaha joogeen ay xogtiina siiyeen oo anaguna wixii aan xog ahayn ururinay inaanu bataatanba qaadacno shirkaas inaanu gebi ahaanba ka baxno inaanan ilaa wax laga bedelayo saddexdii beelood dib loogu soo celinayo inaanan bataatanba shirkaanan dib ugu noqon waayay garad daawada ka dhaxgalo waxaan ka warhaynaa ismada odayaasha wax garadka wali ku sugan magaalada Laascaanood ee beelaha kala duwan beelaha qaar baa horay arimahan u qaadacay waxa tiin beeshii labaad ban rajeynay oo qaadacda shirka wali xaqiina maanta ay war ka soo baxay oo ah in shirka qaadacdeen maxaa lagu saleynayaa in shirka xilligan ay qaadacdeen maadaama aad muddo ku sugnaaday Laascaanood maadaama anagu aan nahay beel balaaran oo budigu ah maamulkan juhdi weyn iyo awood geliyay inay ka mira dhaliyaan jecel inay meeshan wax wanaagsan oo xalaal ah ay ka soo baxaan intaa waxaanu wadnay isku day inaan wasiirka arrimaha gudaha kala hadalno gudida laftigeeda kala hadalno inaanu bal aanu raadino inaanu wax saxno wax intiiba waa nalaga hoos qaadi waayay waana nalaga codsiga iyaga iyo cabashadayadiina waa la qaban waayay taasaa keentay inaanu shirka ka baxno annagu waxaanu jecelnahay in maamul wanaagsan oo dadku u midaysan yahay oo xalaal ah oo mira dhalay inuu halkaa ka dhaco laakiin dad iyagu burbur u soo diyaar garoobay baa meesha garwadeenka ah oo aanu filanno inay rabaan intii yareyd ee aanu haysanay xataa maamulka idinay naseejiyaan madaxweyne firdhiye waa u tagnay waa kala hadalnay arrinta wasiirka arrimaha gudaha waa kala hadalnay ergadii laftigeeda waa kala hadalnay arrintaas waanu weynay wax qadarina oo aanu arrintii cabashadayada wax lagaga qabto marka sida aawadeed waxaanu door bidnay inta wax saa u socdaanba inaanu bannaanka ka joogno oo aanan waxba ku darsan waayahay guddiga garad waraysigeena maxaad fariinta u duwansaa aad dirayso maxay tahay waxaan la hadlayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya habdhaqanka ay wax u wadeen markii horeba ay ku bilowday waa salugsanayn haddana waxaanu leenahay arrinta ka waantooba maamul haddii meesha laga rabo oo uu rabo inuu midho dhalo annagu garwadeen baanu ka ahay haddana waanu ka nahay wixii xalaala ee sax ah baan annagu garwadeen ka noqonana wax laba beelood ay samaysteen oo dad gaar ah ay maamusheen marnaba xubin ka noqon mayno midna ka noqon mayno yaan lagu kalsoomin yaan hawshaas la dhayalsanin dadka garwadeenka hadda ka waa dad burbur u soo diyaar garoobay raba inay reer Laascaanood iyo Khaatumo intii yareed ay haysteen ka burburiyaan waanu ka digaynaa waxaanu ka digaynaa dowladda federaalka ninka ay u soo wakiilka ka soo dhigteen arrimaha guduhu nin wax hagaajinaya maaha waa nin wax qarribaya waa nin raba inuu beesha burburiyo oo dadku ay kala tagaan waxaan leenahay arrintaa laga daba tago dibna ha loo fiiriyo meeshan waa halbowle waa meel ummadda Soomaaliyeed u baahan tahay waa meel ummadda Soomaaliyeed oo meesha isku xidhisay waa bridge-kii yaan la burburinin annagu haddii ay sidaa ku sii haddaanu nahay beesha galweynta faqashini hadday arrintu sidaa ku sii socoto go'aan baanu qaadananaa waanuna arrintaas waanu qaadacanaa maamulkaana bannaankaanu iska taaganaa dadku waxaad moodaa inay dhayalsanayaan beesha faqashini waa beel balaaran oo baaxad leh waa beesha keliya isku xidha koonfur iyo waqooyi meesha annagu aanu wax dhignay dhigmasaa ninka dhayalsanayaa waxaan u malaynayaa waa niman waxba ogeyn waxaan ka digayaa haddii la rabo maamulkaasi inuu shaqeeyo saddexdaa dhardhaar weyn lagu saleeyaa warsangeli iyo dhulbahante iyo faqashini iyo dadka kale deegaankaba weyn xaqooda ay helaan si cadaalada miiska wadahadalka loo wada fadhiistaa laga wada munaashaqooda waxaana soo gaadhaysaa hadalla aanan u qalmin kelmada aanan ka mudnayn dadka deegaanku inaynu yidhaahdaan waxaasoo dhan waanu ka digaynaa waxaan rubnaa wax wanaagsan oo xalaala oo dadka deegaanka ah ee dhibaatadu 30 sano haysatay ay kaga baxaan inaan halkaa ka soo baxaane in dib loogu celiyo dhibkii ma rabno anagu
waayahay kaasi waxa uu ahaa Garaad Daawud Cashuur Warsame oo ku sugan dalka dibadiisa isla markaana ka hadlayay shirkii maanta odayaasha iyo dhaxgaradka ee dhaqanka ee beesha Faqashile ay ku qaadaceen gabi ahaanba shirarka ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka SSC Qaatumo aad baan ku salaamaya waxaad yaroo igu dartaa waxaan aad u soo bogaadinayaa waraalkii uu suldaanku soo dhigay guud odayaasha dhaqanka ee sir sharaa'idka qabtay intuba waa ku saxay soor quureed ma qaadan karno anagu marka sidaasaan ku talinayna insha Allah aad baan ku salaam Garaad